السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارتك كسو دوادا channel كينا Somali Community College waxaan rajeynayaa inaad cashara in anfaco ku saabsan luqadda Englishka inaad ka baran doontaan maanta insha Allah ilaahay ka raali waxaan in wada cashir ama mawduuc haddaad raacdo aad luqadda Englishka muddo yar oo u badnaa 6 bilood inaad ku baran karto insha Allah mawduuca wuxuu noqon doonaa waxa la yiraahdo using Kim chat Kim eraya ayaa laga soo gaabiyay waan arki doonaa oo imaan doonaa Kim chat waxa waaye macnaha wax la sawirayo camal oo la dharow gareynayo ayaa la yiraahdaa chat ma imaanana sheegna insha Allah Kim chat macnaheedu marka waxa waaye marka wadadan Kim chat ka hadda raacdid it can be overwhelming yani it can be awesome camal waaye waxa waaye it can be good waaye camal to keep you inay kugu hayso a track jidka of all the new words oo ah erayada cusub oo dhan and phrases you learn throughout your education erayada iyo sentenceska ama jumlooyinka aad baratay ayay kugu caawinaysaa Kim chat-ka inayna ka lumin ama si dhib yar aad u xasuusato Kim chat waxa waaye is a good way waa nooc fiican to help you kugu caawinayo to keep a track of track waxa waaye a road macnaha jidka ama pathway macnaha jidka waxbarashada u haysto ayuu Kim chat kugu haynaya and remember waad xasuusanaysaa all this new wixii cusub oo dhan oo soo baratay oo ah vocabulary eraya vocabulary waa just like a terminology macnaha wax walba oo luqad ku saabsan oo soo barato oo adiga ku cusub ayay Kim chat ku tasaalaysaa inaad xasuusato Kim marka waxaan nahay waxay u taagan tahay Kim stand for kaydan waxay u taagan tahay keyword waa erayada waaweynka keywordka macnaha oo mudan in la xasuusto information erayadaas waxay ku saabsan yihiin memory cue iyo sida uu xasuusan lahayd tusaale u imaan doonaa using Kim chat isticmaalka Kim chat can help you waxay kugu caawinaysaa retain to recall you ama to keep you the vocabulary you are learning erayada aad baranaysa and show you waxay ku tusinaysaa far you have come meesha fog aad ka imaaday oo marka hore aqoonta aad u lahayn luqadda Englishka oo meesha jidka dheer soo martay ay ku tusinaysaa in your academic English language ability awooddaada luqadda Englishka ability waa had kor waan soo marnay waa awood marka waxaan u imaan doonaa Kim chat si loo sameeyo ayadoo samaysan insha Allah cashirkana gaasha aan ka ogaan doonaa to make a Kim chat u samayso take a sheet xaashi qaado of a paper boga xaashiisa ayaad soo qabanaysaa and draw 3 lines 3 line ayaa sawiraysaa oo maanta 3 line yihiin 3 line oo dherer ah macna san iyo san ayaa u sawiraysaa at the top of the first column-ka ugu horeeyo write a keyword aad ku qoraysaa insha Allah draw one oo imaan doona laakiin 5 6 qodob ama 7 qodob ayaa dul maraynaa oo sida loo sawiray si aad u sawirkana fahan kale ugu sii hesho at the top of the first column write keywords at the top of the second column kana waxaad ku qoraysaa write information under that write information hoos waxaad ku qori definition of the words in a comment or si comment ahaan ayaad u qoraysaa at the top of third column write memory cue below that write sentence or a picture in a comment draw a line ayaa sawiraysaa from the left right side from the left to the right ninka bidixda ayaad ka soconaysaa ninka midigta ayaad soo ujeedinaysaa sida bookta waa qaar waxay from to show rows fill the column with any new words you encounter column-kaas ayaa wax ku bixinaysaa any words or you encounter or soo marta you meet macna erayada aad aragto oo dhan along with your definition iyo macnahoodii and memory cue si aad ku xasuusanayso or a sentence iyo ama jumla ahaan to help you to remember them si ay kugu caawiyaan inaad u xasuusato waa kana marka Kim chat waa kana waxaan dhahnay these are columns kuwaan sound there and this one are rows marka first column waxaa ku qoraysaa keyword second column waxaa ku qoraysaa information under this information waxaa ku qoraysaa definition of the word the third column waxaa ku qoraysaa memory cue tusaale ahaan keyword-kan hadda soo qaadan maxaa waaye enhance macnaheedu maxaa waaye meaning raising enhance waxaa waaye improving meaning raising wax kor u kacay something value wax oo
qiimihiisa kor u kacayo or making ama samayn it better ka soreyn. If something is made worse markuu qof wax uu xumaado, then it has not been enhanced. Markuu wax xumaado horumar muu sameynin. Enhance is just like improve, wax kor oo macnaha kor u kacay raising. tan marka keywordski waayo waad soo qaaday xanshida boogsaana kugu qoran yahay keywordki aad meesha ku aragto dhan baa saa u qoraysaa micnihiisa yar aad ku qoranaysaa memory queue si aad u xasuusato ayaa jumla ahaan u isticmaalaysaa. The term practiced for an extra hour, waqtiga la practice gareeyo waxaa la isku dayo for an extra hour oo saacad dheeraad ah every night habeen walba and enhance waxay u improve garaynaysaa horumarinaysaa their chanceska of winning the match ay u qaadi lahaayeen ciyaarta. Marka enhance waa tana enhance as a keyword, enhance as a definition like informationka meaning raising something value of making it better. If something is made worse then it has not been enhanced. Then memory cue for you to remember you have to write as a, or use in a sentence. So the team practiced for an extra hour. Kooxdii ayaa waxay samaysay saacad dheeraad ah oo tababar ah every night habeen kasta. Enhance and improve waaye their chance chanskooda fursadoodii of winning the match sida ay u qaadi lahaayeen ciyaarta. Marka asxaabta KimChat waayo one of the best method that you can remember and learn English language if you use it. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad KimChat-ka aad isticmaali doontaan. aad ayaan in salaamaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.